waxaan u malay 600 bir oo lacagta Ethiopia iyo raga dhannayn 200 wiil baa dibadda 4 nin ama 5 nin oo Jarmal joogta yaa wax dibad ka jiray aniga la xaynayo meel agagaarkooda ay joogo qurbo wax joogay inta saaraya maanta Fortemori oo Noordka aan malayna wax ka xigaabay soo jirin laga soo bilaabo ilaa Perth oo galbeedka Australia inta ka dhaxlay dhalinyarada inkoo kala ka howlgalaysa oo noocyo fara badan oo kala duwan ugu howlgalaysa Ethiopia geed gaaban iyo geed dheer waxay u istaagtay inay ONLF la qoro iyo OLFba in la qoro inay yihiin terrorism liiska terrorismka in lagu daro waagii hore waxaan ku guuleysanay ilaahay mahadi waxaan ku guuleysanay in war walba waagii xaalad badan Ethiopia dunida soo maraya waqti waxaa jiray Ethiopia waxa ay in laga sheegto la rumaysnaa ninka Ethiopia magaceeda ku hadlaya wuxuu qabr daaray iyo goday iyo qalaafi iyo jigjiga iyo muxuu ahaa dhaxbuur ka sheegay iyo fiq in la qaadan jiray waxaasina uu yahay wax rasmi ah ee ka jira meeshaas talabadii kood waxaan ku guuleysanay inaanu gaarsiinay inaan dhacno waxaas waxba kama jiro oo aan ku guuleysanay in la yiraahdo markay warqad geeyaan warbixin ay geeyaan la yiraahdo okay waanu inaan maqalay laakiin boqolkii kalena aan maqalo ee ininka duwan ininka waanu in dhageysnay qolihii kalena waadhowto waxaan ku guuleysanay in la yiraahdo waxaad sheegaysaa waxba kama jiro waan ognaa wax meesha ka jiro laakiin hadda inma haysanay ordo oo daliina raac in la yiraahdo maanta waxaan kalsooni buuxa ku qaba xafiis walba ay galaan in la oranayo waa idinka soo horreeyay warkan aad sheegaysana waa been waxba kama jiro ee iska tag meedan ahayn xaaladda hadda dadku meesha ku nool ka hadlaysan ku jiro wax ka bedel marka ka bedeshaan baan inuu la hadlaynaa waxa kale oo aynu ku guuleysanay in Ethiopia aan ka caagno golayaashii intay tagtay say doonta ay uga hadli jirtay oo say doonta ay waxay tiraahdo uga sheegsay in hadda golo walba inaynu dhex fadhino oo Ethiopia markii ay ayadu hadasho inaguna aynu hadallo ama markaynu inagu hadallo waxaynu ku hadallo ay dhageysatay tawaadkiisa weyno inay miiska ka kacdo iska baxdo Ethiopia siyaasadhaan waynu ka adkaashaan waliba si badan siyaabo badan ku yaqaan laakiin xaqiiqahan Allah naxariisto dollar baa wuxuu dhihi jiray anaga Ethiopia kalamaadkan baan sababtoo iyaguna wadanka way naga saari lahayd anaguna ka saari lahayd marka hadda waxaan u baahnaa waxna dhexdhexaadiyay u dhihi jiray Allah naxariisto Ethiopia golahaas ama goobaha siyaasadda maanta ma ka kacsan waxa ay ku warwareegaysanaysaa hadda waxa weeye in warkii qabiilkan ay la wareegto kolba ay reers wax u soo dirto kolba wax tiraahdo tiina way meel lagu qaban lahaa dadkana marka laba arrimood baa isaga khaldan oo ciidanka jabhadu xilliyo waxaa jiray 2007 iyo 2009 iyo 2008 iyo ciidamadii la tababaray Eritrea lagu tababaray la gelinayay mandad iyo Algeria iyo Algeria la gelinayay xilliga bilaadan waa iska gulkalkaal waxa uu muuqday dawladdu sadkaas uu muuqday dad badan baa iska jibaysnaa xilliga isaga ah ciidankan wuxuu howlgalay sidii ciidan military oo dawladda yu xilligeedina waa la joogay waqtigeedina waa la joogay wacyigeedina uu ahaa hadda maadaama Soomaaliya gacantii ay hadda ku leedahay Ethiopia ay xoogaysatay oo ay sanadaha gacanta ku leedahay ay ahayn oo wadooyinkii Soomaalida ay dibacday oo jilicday oo ay
wadooyinkii aynu mari jirnay qabiiladii Soomaalida aynu dhex mari jirnay hadda sidii hore aysan ahayn oo ay u nuglaadeen gumaysiga Itoobiya ay u nuglaadeen innaguna istaraatiijiyadii waynu bedel oo in aynu ku celinay ciidankeena gorilla warfare xilliga jabhadeyn rasmiin dib ugu celino oo aynu ka saarno meelaha wayaanaha baabuurtooda iyo military-gooda iyo sida sahlan ay u mari karaan oo aan ku celino dhulka muxuu buuraleyda sareeye ee biyaha leh ee muxuu geed ugu gaban kara leh galbeedka in ciidamadana u badino ayna noqdaan ciidamo loogu talagalay inay jidgooyada iyo muxuu xeryaha ugu waaro mooyeen ciidankii ka face hadda ka hor in samayn jirnay in la joojiyo